tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii milatariga waxaa Soomaalida loogu qabtay dalka dibadiisa in ka badan 15 shir oo loogu wanqalay dib u heshiisiin. Shirarkaasi waxaa qaarkood lagu soo dhisay dawlado ku meel gaar ah oo mid waliba loogu talagalay 3 ilaa 5 sano inay shaqeyso. Saddexdii dawladood ee lagu soo dhisay magaalooyinka Carta, Embagati iyo magaalada Djibouti waxa ay hor keeneen 3 madaxweyne kastaana isagoo aan waqtigiisa dhamaysan ayuu nabaray ugu yaraan 3 ra'iisul wasaare kadib markii ay khilaaf ku kala tageen hadba midka uu soo xisho ama loo soo xulay. madaxweyne Dr. Cabdiqaasin iyo ra'iisul wasaarihiisa Dr. Cali Khaliif Galleer markii ay isxamili waayeen ayuu madaxweynuhu ka doorbiday mudane Xasan Abshir Faarax isagana aakhirkii waa ay isirtiyeen. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo ra'iisul wasaarihiisa mudane Cali Maxamed Geedi xaalkoodu heer xun ayuu gaaray waxaan Cabdullaahi soo magacaabay mudane Nuur Cadde markii ay wax isla fahmi waayeenna waxa uu ka doorbiday mudane Gacma Dheere inkastoo markii dambe xaalka lagu soo afjaray in isaga qudhiisa xilka laga daadajiyo. dawladda ku meel gaarka ah iminka uu hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif 2 sano kadib waxa ay iskhilaafeen ra'iisul wasaarihiisa koowaad mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake hase yeeshee khilaafka waxaa lagu xalliyay si hoose oo waxaa si shanqar la'aan ah jagada u baneeyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. mar kale Sheekh Shariif waxa uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Farmaajo oo ah nin aan horay loogu aqoon saaxada siyaasadda hase yeeshee ra'iisul wasaarahani waxa uu muddo kooban isku baray caalamka iyo Soomaalidaba waxa uu dhaqdhaqaaq ka muujiyay howlo badan oo hortii fadhiid ahaa sida amniga, moralka ciidamada, la dagaalanka musuqmaasuqa, maamul wanaagga, la xisaabtanka hay'adaha qaramada midoobay oo in dhawaalaba ka fadhiyay magaalada Nairobi iyo waliba isagoo iclaamiyay inay muddo 90 cisho u soo guuraan gudaha wadanka Soomaaliya kuna shaqeeyaan. inta kuma koobne waxa uu mudane Farmaajo mushaar u bilaabay askartii ku aadima iyo indhabeeshay dagaalkii 77 kuwaas oo qoyaan ugu dambeysay dawladii Maxamed Siyaad Barre iyo qodobo kale. iyo ay haddaba howlahaasi dardar ku socdaan ayaa waxa la maqlay khilaaf madaxda sare ku faafaya waxa saxaalku sii xumaaday markii laga shanqariyay in ra'iisul wasaare Farmaajo lagu amray inuu iscasilo dabadeedna waxaa dhacay wixii dhici lahaa oo ah in dal iyo dibadba si aan kala har lahayn ay ficilka uga banaan baxaan shacab qiiraysan. inkastoo aan dhig jalaq loo siin mudane Farmaajo waa uu ka howleelay qasriga madaxtooyada. mar saddexaad madaxweyne Sheekh Shariif waxa uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare cusub kaasoo loo magacaabay mudane Cabdiweli. waxaa la filayay in madaxda sare ee dawladdu ay wada shaqayn doonaan mar haddii laga gudbay khilaafkii ra'iisul wasaaraha dhankiisa ka imaanayay muddada sanadka ahna ee u hartay hay'adaha dawladda si ay u geedigeliyaan howlaha qabyada ah sida dastuurka, amniga, maamul goboleedyada iyo dhammaan tiirarka 20 sano kadib looga guuri lahaa dawladda ku meel gaarka ah looguna gudbi lahaa dawlad buuxda. hase yeeshee waxa ayaan darro ah durbaba xamxamta aqalka madaxtooyada laga helayay inay muujinaysay inuu jiro khilaaf iyo is-afgaranwaa u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda kuwaasoo salka ku haya dhaqangelinta heshiiskii Kampala, kala doorashada halka la dhigayo gogosha shirka lagu sheegay wadatashiga iyo qodob ismariwaa dheer kadib la soo afjaray kadib markii lagu dhawaaqay golo wasiiro oo wajiyadooda ilaa iyo haatan dad badan aanay aqoon kadib markii 3 liis ay kala wateen madaxda sare ee dawladdu ee caqabada ay ku ahaa in ra'iisul wasaaruhu shaaciyo tiimka la shaqayn doona meesha laga saaray. dadka siyaasadda rogroga ayaa qaba in wafuudda qaramada midoobay iyo AU-da ka socda ee toddobaadyadii tagay sida daadka ugu soo jabay magaalada Muqdisho in ay galaan fara badan ugu jireen isku soo dhaweynta madaxda sare ee dawladda inkastoo ay ku afgobaasanayeen marka ay qolyaha wararka tabiya la hadlayaan inay u yimaadeen wax ka qabashada gargaarka dadka tabaalaysan. inkastoo khilaafka madaxda sare uu margaaray heer faraha laga qaad ah ilaa uu saameeyay ilaalada madaxda sare ee dawladda sida dhacdadii dharaarta cad ka dhacday gudaha madaxtooyada taasoo sababtay dhaawac iyo dhimasho. haddana guusha ka dambeysay in ra'iisul wasaare Cabdiweli uu la soo golo joogsado 18 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxaa la oran karaa waxaa ka dambeysay oo gacan weyn ka geystay ergeyga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Sir Jerry Rowland kaasoo la rumaysan yahay inuu xalinta arrintan iyo arrimo kale oo jiraba uu ugu cawabariyay magaalada Muqdisho. marka ugu dambeyntii khilaafka madaxda sare ee dawladda ku meel gaarka soo kala dhex gala had iyo goor ma waxa la oran karaa waxa uu salka ku hayaa dana dhaqaale, dana siyaasadeed iyo dana shakhsiyadeed mise waxaanu niraahnaa waa dana shisheeye maadaama ay muuqato in wax loo yeerinayo madaxdeenna oo ay ka dhursugayaan had iyo goor marka ay iskhilaafaan in shisheeye soo kala dhex galo iyagoo degan aqalla iskulaalaya.